Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Rukia Abdi, and I want to talk about stay home extension and that our governor announced it, and also I want to talk about a little bit about Teacher Appreciation Week, which is May 4 and which is going to be tomorrow, Monday, until Friday, May 8. And I will be speaking in Somali language. walaalayaal magacaygu waa Ruqayya Cabdi walaashiin waxaan rabaa inaan ka hadlo guriga joogitaanka guriga oo governorkeena Tim Wallis Minnesota uu sii dheereeyay iyo Teacher Appreciation Week wax la dhaho isbuucii loo riyaaqayay macallimiinta iyo waxa laga wado ama waxa la sameeyo oo kale iyo inaad idin la wadaago waxaan kaloo wax yar ka tataaban doona maadaama ramadaanka lagu jiro ramadaanka iyo dabeecadaha wanaagsan inay ma arkino ramadaanka inay tahay waqti aad noo siinayo fursad inaan insha Allah ta'ala anaga dhan dadkeena waaweyn iyo ciyaalkeena qaas ahaan maadaama guriga ay joogaan distance learning ay la sameynayo in akhlaaqda fiican ma arkino ay bartaan maadaama bishaan ay tahay bil dabeecadihii xumaa laga tegayay bal inaan ka dhigno laab insha Allah ta'ala maadaama ciyaalkii ay nala joogaan marka waxaan ka bilaabayaa stay home-ka sidaan ognahay governorku wuxuu yiri guriga hala joogo ilaa May 4 and so today the last day noqonaysa ilaa tomorrow May 4 tahay way expiration kii dhacayo so wuxuu dhahay waa in ilaa May 18 18 May guriga la joogo micnaha loo dhahayo maxay tahay kulay sida waxyaabo badan uu soo daliishaday iyo sida la sheegayaba oo aan maqlayno sida cudurkan viruska uu u dhaqmayo haddii aan la sameynin unbaa marwalba la leeyahay laakiin caadi ahaan cudurkan wuxuu qofka ka soo baxaa markuu qof cudurka qabo aad ag joogtid ama uu kugu dhaco ilaahay subxaana watacaala hanaga badbaadiyo 2 isbuuc gudahooda qofkii wuu ka soo baxayaa dhowr maalmood 3 maalmood 4 maalmood ugu horeysay 5 maalmood waxa laga yaabaa inuu cudurkiina qabo laakiin uusan ka soo bixin marka 2 isbuuc waa inta uu qofka ma arkin uu ku xanuunsan karo marka maxaa hadda dhici karo waxay leeyihiin waxa laga yaabaa inuu peak dhaco hada hadda goor idin la wadaagay fadlan YouTube channel kan aan idinku talagalayna insha Allah ta'ala dadka la wadaaga haddaad email leedihiin subscribe gareeya si ajaladaha cusub markaan duubo aad ma arkino uu idin soo gaaro ama aad u ogaataan waxaan ku duubay in ma arkino uu peak flatten the curve wax la dhaho inaan sameyno oo sababta guriga loo joogay ay tahay in dad badan aysan xanuunsanin hal mar isbitaalada la wada tagin marka labadan asbuuc marka hadii la joogi waayo micnihi hadda biri ka bilaabo today oo kale you tomorrow just go outside oo kale no social distance everything after 2 weeks waxa laga yaabaa dad badan inay xanuunsadaan isbitaalada marka laga arkaya marka go'aamada uu gaarayo waxa hagayo informationka uu ka helo meeqa qof ayaa isbitaalka tagtay hadda marka berito laga bilaabo kale dadka way joogeen Minnesota dhan gurigay joogeen wajigooda way dabooshan wax bay sameeyeen waxa way 2 isbuuc kadib isbitaalada numberkooda wuu yaraanaya ama sidaan hadda uu si tartiib ku soconaya laakiin waxa leeyahay May dhamaadkeeda waxa la saadaalinayaa May markay dhamaad bishan hadda lagu jiro inuu peak dhaco oo dad badan ay wada xanuunsadaan si loogu hortago ayaa waxa leeyahay marka guriga 2 isbuuc hadda hala joogo waxa kaloo jirto in ma arkino sida sawirka meesha uu aad uga aragtaan gacnaha mar walba sax wala dhaqo insha Allah ta'ala guriga hala joogo waxa kaloo jirto wajiga hala xirto face mask maskaraato waa aad ayuu muhiim u yahay sababtoo ah viruska wuxuu ka galaa dadka indhaha afka iyo sanka haddii marka aad gacantaada aad dhaqdid marka wajigaadii marka taawati safe ayaad ahaanaysaa
maaskaraatahana face maskana markaad banaanka joogtid oo kale qofka markuu qunfaco iyo uu hindhiso iyo marka hore ahayd hadda waxaa aad loo malaynayaa qofka markuu hadlayo xataa waxyaabaha yaryarka kasoo baxaya hadduu cudurkaas uu qabo inuu ku geli karo marka si aad protection u heshid wejigaada dabool waxaa kaloo u gudbayaa teacher appreciation week isbuucii loo riyaaqayay macallimiinta hadda saan ognahay distance weeka distance learning lagu jiraa wadankan waxaa laga yaqaanaa macallin يعني qof walba xirfad leh ama wax sameeyo اسبوع وليه maalin uu leeyahay Mother's Day kan day macallimiinta marka teacher appreciation week jiro marka waxa la sameeynaa mostly iskuulada markii la aadi jiray waxa la sameeynayay macallinkii waa mahadsan tahay waalidkii ayaa u tagi jiray dadka qaarkood intay cunto u sameeyaan ay geynayaan adiga waxyaabo badan loo sameyn jiray oo tusinayso in ay u riyaaqsan yihiin hadda marka maadaama aan aragnay macallimiintii runtii dhibka ay hayn jireen ciyaalkii aan maanta aragnay inuu aad u dhib badan yahay waxaan u maleynayaa inaan 10 lab yani 10 times 10q yani inaan niraahno insha Allah taala waxaa jirta marka maadaama aan la isku jeedin habab badan oo loo sameyn karo waxaa kamid ah in familka uu duubi karo video kale u dhihi karo macallimada waa mahadsan tahay thank you so much teacher you know in ama aa sheegtid wax uu macallin mucayan ku sameeyay xataa hadduu uu macallinkaas uusan ahayn macallin u nuglaa ama idin nuglaa waxa laga yaabaa hadda qof walba uu isbedelo qalbigooda wanaagsanaado thank you wax badan bay bedelaysaa u tusa idinkoo joogo cunug ilmaha waxay isticmaali karaan Thailandigooda ma arkino inay wax draw gareeyaan picture u draw gareeyaan gabay u akhriyaan waxyaabo badan warqad u qoraan Zoom meeting iyo marka lagu jiro ay ka tusiyaan meesha email loogu diro adiga sidaad u tiraahdidba goolka waxa waay inaad muujisid macallinka in aad u mahad celinaysid macallinkan waxyaabaha uu qabtay inaad dareysan tahay oo maanta aad u mahad celinaysid insha Allah taala waxaa kaloo aan u gudbayaa ugu dambeyn aan waxay ka hadlayaa ramadaanka in insha Allah taala aan ka dhigano ramadaanka waqti aan ma arkin oo ku bedelno dabeecadaheena مثلا waxaa jiro waxyaabo badan hadda socdo muxaadarooyin badan kan dhageyso kaas dhageyso quraanka juz baan akhriyaa maalinka waxaas dhan run ahaantii waxyaabaha oo waajibka oo marka hore la sameyn jiray hadii aad ku guuleysato in aad ma arkin oo ka dhigto dabeecad oo socoto hadda مثلا salaatu fajrka kale looma dadka qaarkood waa ka caajisaan uma kacaan on time hada ama 10 minutes before hadaad aad ka dhigto dabeecad inaad kacdaan idinka dhan familka insha Allah taala aad wada tukataan quraan wada akhrisataan intaas kaliya hadaad wadaan sheeko fiican ka sameeyso oo wixii waajib ahaa adkaysay aad dhuujisay intaas aad noo anficaysaa sababtoo ah waxyaabo badan hadaad sameysid laakiin wixii basic aad dayacdid wax faa'iido ma sameynayso ramadaankiina maanta ma arkin oo dhaafo waxa kale jirto in ciyaalka in aan ma arkin oo barno respect elders oo kale respect your parent your teacher be kind waxaas oo dhan xadiis baa jirto ayado quraan ah ixtiraamka adoo ixtiraamayo dadkan waa ku jeclaanayaan cunuga markuu hadda barto xadiisana ma arkin oo 40 kale yani u soo qaada saddex axaadiis xataa badanina ramadaankan gool ka dhigta in la fahmo waalidka oo la respect gareeyo ya in ma arkino ajarna laga helayo macallinka in respect gareeyo iyo dadka ma arkino liito iyo qof walbaba in ma arkino loo naxariisto inaan dadka la caayin la aflagaadeenin lagu afcelinin waxa soo dhan anaga naga baranayna ciyaalkeena qayr baa idin rajeenayaa again waa walaashin ramadaan wanaagsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala cudurkan hana dhinac mariyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa sharta wato hana dhinac mariyo ilaahayna naga dhigay dad wanaagsan is wanaajiyo is afiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh